ku-xigeenka dekedaha Soomaaliland ayaa maanta xilka uu kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee ururada geelayaasha iyo gudoomiyaha cusub ee u dhawaanta soo magacaabay Maariya Siciid Xasan Cabdilaahi. Munaasabadan oo ka qabsoontay xafiiska Maariyaha Guud ee Dekedda Berbera ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyihii hore ee ururada geelayaasha. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha cusub ee dhawaanta loo soo magacaabay inuu maamulo ururadani. Anigu muddadii aan joogay geelaha wax badan baan hormaray intii aan joogay. way hanti hore guraan leeyahay guriya intii aan joogay wax dhibaatay kuma dhicin marba yahay waanu iibsanaynaa waa ilaalinay sidoodii ee maanta lagu soo gaaray qaar cusub waa intii aan joogay baa la dhisay oo waanu leenahay imika aanu hanti cusub soo korodhay habaynta iyo dhismaha shaqaalaha ayaa kamida horumarintan sameeyay isku xidhnaanta gudiyada xeerarka nidaamka waxba wada saar gudoomiyaha iga horeeyay oo aan marka hore wanaagu naga dhaxeeyay oo si fiican uga shaqeyn muddo dheer anagu aan wada shaqeynaynay oo wax badan oo wanaagana isu tirsanayno isagana aad baan magaranaysaa waan sidii madaxdii hore loo ilaalin jiray iyo sidii heshiiska u ahayn baan u ahaanayna maamulka dekedana aad baan ugu mahadnaqaynaa oo in badan iyaguna nala shaqeynay xilkan amika dalay dhiibayna waxaan idinka codsanayaa inaad igu ducaysaan oo ilaahayna oo saqrade Maariya ku-xigeenka dekedaha Soomaaliland oo isaguna munaasabadan hadal ka soo jeediyay ayaa waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay lagu wareejinta had iyo goor lagu sameeyo maamulada hore iyo kuwa dambe ku jiro laab xarashadu ku jirto oo xilka u wareejiyay ayaa uu xilka aan kula dardaarmay aad ula wareegaysaa odaygii baad tahay isagii oday baad u tahay xilka lagu wareejinay oday baad ka tahay isna odaygii haydii noqdo goobjoog ah ee talada ka qaadanaysa waa aragnimada laga faa'iideystaa waa laga faa'iideystaa hadii goor waxa mushkilada ay ugu dhacay maamulka Naxween nin baa fadhiyay 20 sanadood ninkii ka tagay meesha nin kala fadhiisanaya kii hore waxa weydiin maayo warsay wax oran jirtay say ahaydiyo oo dad mushkilada saas ka hortimaada laga bilaabo maanta odaygii weydiiyay Ibrahim waana mahadsantiin dhammaantiisana wajina waxaan ku dardar ku gabagabeynaya hawsha wixii technical ma shaqaalaha noqoto qalab ha noqoto waa noqdo technical waxa u xil saaran oo laga bilaabay imika ay israacaysaan Khadar Arab Nuur iyo Cabdiraxmaan Aar labada nin baa xilka wixii technical ah hawsha sida xilka uu wareegsan ama qasrad noqoto ama baaran noqoto ama shaqaalaha noqoto ama xisaab waxay noqoto ma noqotee loo xisaabiyaha iyo maamulka shaqaalaha waa Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Suul Goobjoog TV Berbera.